Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada walaalaheyga Ogbad Home Decoration. Insha Allah hooveradii aan rabo inaan hal idiin tuso. Masha Allah, hooverkan wuxuu uu ka kooban yahay insha Allah inta qalab ku jirto insha Allah idin la wadaagi doonaa iyo hoover kale oo noo yaalo asna insha Allah sidoo kale waa idin wadaagi doonaa iyo waxa farqi u dhaxeeyo labadooda. insha Allah hooverkan wuxuu ka kooban yahay intaas oo alaab hadda aan soo dhignay USB labada USB ay ku shaqeynayaan jaajar ay qaadanayaan marka buuga instruction-kii wixii kala soconaysa qaabka wixii iskugu xirmaayay insha Allah ka hoover waay kan kale hoover waay insha Allah kan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo habka la iskugu xirayo waxa dhan insha Allah waa idin tusi doonaa marka kii ku anfaco insha Allah screenshot ka qaado iyo soo dir insha Allah meesha oo laga furayaa sidoo kale meesha aan taabanayo waxa waa meesha jaajarka uu ka qaadanayo meeshaas kale tan oo gacanta ahna waa meesha laga daarayay habeer oo fudud u furaysa insha Allah kan hadda fureynana waa kii qashinkii marka aad waxa ku soo xaaqdid oo ku soo nadiifisid waa geesin tubada geenaysa waa dhaqaysa insha Allah marka ku qalalo ama aad tirtiraysa waa isku xiraysa mal rabo waxa inay biyo ka gaaraan insha Allah kan kii lagu dhaqayo ma aha waa kii lagu xaaqayo insha Allah waxa rajeynaa inay fahanteen hadana waa isku xiranaysa tubooyinka marka habka waa la is dhexgelinayaa kan waa madaxii wax lagu xaaqayo wax ku nadiifinayo insha Allah marka aan wax ku nadiifsatid meeshaas kore waa furaysa qashinka waa ka soo shubaysa waa nadiifsanaysa meel aad dhiganaysa marka jaajar waan jaajareynaysaa oo full jaajar marka ka dhigto kadib ku shaqeynaysaa insha Allah waxa rajeynaa inaan isla fahanay sidoo kale wuxuu wataa tube-kaas oo wataa asna meelaha koonarada ku soo nadiifinaysa kana sidoo kale daaqadaha aluminum-ka geesaha meesha busta ka galayso sidoo kale fadhiga geesihiisa oo kale fadhiyada barkimanka kala qaadmeyn asna wuu nadiifinayaa masha Allah marka kana sidoo kale asna waa mini hoover kale oo yar waay kan buu ka yar yahay insha Allah waxa rajeynaa inaan isla fahmin doono kii aad u baahan tahay insha Allah screenshot ka soo qaadan doontid aan ii soo diri doontid si insha Allah labadu waxay ka kooban yihiin waa same qalab ka kooban yihiin kulligood waa 3 in 1 asna sidoo kale sidii kii hore loo furayaa wax farqi u dhaxeeyna waa ka sida arkaysaan wax yar ayuu ka weyn yahay kan wax yar ayuu ka weyn yahay marka intaas oo farqi u dhaxeeyo asna sidoo kale intii wata tube-kaas ku xiranaysa geedkaas kale ku xiranaysa waa ku xaaqanaysa waa ku nadiifsanaysa sidoo kale tubadaas uu wata oo afka ugu xiraysa meelaha koonarada ee armaajada geesiheeda iyo waxaas yuu ku nadiifinaya kan wuxuu dheeriyaa kaas burushkaas shirka uu wata markii meesha oo wasaqda galayso oo kale marka ay kaaga bixi weyso oo kale asii burushkaas waa ku nadiifinaysa wuu ku nadiifinayaa wuu ku hagaajinayaa kullina marka aad wasaqda ka bixisid wixii meesha kaaga dhago cadaanka waa nadiifsan kartaa waa dhaqan kartaa marka aad dhaqatid waa inaa meel qorax dhigtaa ama aad tirtirtaa si fiican u tirtirtaa marka labadooda kii ku anfaco insha Allah waxa rajeynaa inaa screenshot ka soo qaadan doontiin ii soo diri doontiin haduu Ilaahay yiraahdo marka qalabyada waa same bas way kala weyn yihiin waxa rajeynayaa farqiga intaas in uu yahay insha Allah aad fahanteen waxaan lagu hagaajiyaa fadhiyada dhulka USB wata asna insha Allah khayr